Soomaaliya waa waddan dadkiisu u badan yihiin dhalinyaro. 75% ayaa lagu sheegaa tirada dadka Soomaaliyeed inay ka yihiin dhalinyarada. Haddana heerka shaqo la'aanta waddanka waxay maraysaa meeshii ugu sarreysay. Sanad kasta jaamacadaha gudaha waxaa ka soo baxa 10,000 oo dhalinyaro ah, dhammaantoodna waxay ku biiraan tirada dadka shaqo la'aantu ay ku hayso dalka gudihiisa. Marka aad la falgasho dhalinyarada waxaa kuu muuqanaysa sheekooyin murugsan oo ay sababtay shaqo la'aantu. Haddii uu hal kambani soo shaaciyo hal boos oo ka bannaan shaqada kambaniga, waxaad arkaysaa in halkaas boos ay shaqada ay ablaygareeyeen wax ka badan 100 dhalinyaro ah oo fildigaas ku fiican. Marar badan ayaa la arkaa dhalinyaro ka cabanaysa shaqo la'aan xilli ay jaamacada ka soo baxeen. Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada gudaha waddanka wax ku baratay ee digitalka ah. Waa aabba carruur iyo xaas ay u joogto. Waxa uu ka sheekaynayaa sidii u saamaysay shaqo la'aanta jirta. Sanad iyo bilooyin ka hor ayuu waayay shaqadiisa. Tan iyo xilligaasna Axmed waxa uu ka shaqeeyaa subaxii ilaa ay galabtii sidii uu shaqo u heli lahaa. article waxaan ka qoray processka maaragtay shaqo raadinteeda. dabcan aniga waxaan ahay aabe maaragtay reer leh carruur leh, marka waa igu adag tahay in maaragtay aan sidii xitaa soo kaco haddana hurdada ku noqdo, waa culays ay igu tahay. marka waxaan sameeyaa subax walba 2 saac markay tahay aniga gurigeyga kasoo qabeystay kasoo libistaan kasoo baxaa. waxaan imaadaa meelaha coffee shopska, waxaan maaragtay internet haystaa, laptopkaygaan la kala baxaa, waxaan sameeyaa raadin ku saabsan shaqooyinka. muddo markaan saas soo waday shaqo walba ablaygareeyay waxaa igu soo dhacday warniyahow baashaan way socon laadahay. waxaad isku dayayaa dadka influensiga ah oo maaragtay ama taytalada haya ama hay'adaha waaweyn u shaqeeya in si maaragtay personal ah oo la xiriirto. waxaan bilaabay inaan LinkedIn connection sameeyo, aan dadkii maaragtay connection sameeyo, aan message u diro, aan maaragtay CV-yada u diro. qaarkood maaragtay si fiican ay isu dhaweeyaan, ay la hadlaan, waxay dhahaan neehow CV-gaaga waxaan la wadaagaynaa ada networks kale aan haysano. qaarkood maaragtay waxay yiraahdaan lacala haddii wax soo baxaan niyadaan kugu haynaynaa. midaasaa marka waxay sababtay inaan maaragtay aad aan maaragtay igu sii dhiirato inaan maaragtay aan dad badan maaragtay aan connection fiican helo. wax walbana maaragtay ma joojiyo ilaa iyo galabtii 11:00 aan ka xaroodaa magaalada, aan maaragtay ka hoydaa. waxyaabaha kaleeto aan sameeyey oo isbuucan 2 isbuuc ugu dambeysay waxaa ka mid ah isagan inaan aad u isticmaalay Twitterka. sababtoo ah Twitterka aad waxaa isugu yimid dadka professionka ah oo maaragtay isugu jira different fields. tallaabada kale oo aad u fiican oo aan sameeyay waxaa waaye waxaan sameeyay qoraal yar oo qeexayo qaabka maaragtay xaaladdeedii ay tahay shaqo la'aanteeda maaragtay iyo processka halka aan wax marinayo. oo midda maaragtay keentay in aan adinka maaragtay aan isku barano.